السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan soo dhaweynayaa marti sarafka ku kulansan madashan dhamaantiina salaanto iga gudooma waxaan ku salaamay salaanta islaamka inta kadib mar walba waxa wanaagsan in la taageero hanaanka nabadda iyo wada shaqeynta sidaa darteeda hadda waxaan arkaynaa dhabaha halka ku socda iyo dawladda halka ku socoto ha ugu horeeyo madaxweynaha gaar ahaan ha ku xiga ra'iisul wasaarihiisa Roble hawsha sida ay u wadaan ee shirka wada heshiinta dib u heshiisiinta si wanaagsan ay ku socdaan sidoo kale waxaan u hambaleynayaa maamul goboleedyada ee ka soo qayb galay hanaanka si wanaagsan u wada iyagana waxaan leeyahay dalkiina meel idin dhaanta ma jirto sida awgeed waxa la doonayaa inaad u durtaan shacabkiina iyo ummadiina aad ka qayb qaadataan nabadda dhankeeda aniga gaar ahaan haddaan aan ku hadlo magaca nabadoonada reer Banaadir maadaama aan ahay qof reer Banaadir ku aftirsada sida awgeed waxa qabaa in mar walba il gaar lagu eego beelaha reer Banaadir maadaama ay yihiin udub dhaxaadka magaalada Muqdisho ayna asaaska iyo asalka u yihiin sida darteeda waxa fiican hanaan walba ee la qabanayo iyo shir walba ee la qabanayo in oda dhaqameedkooda iyo cuqaashooda iyo culimada diintooda inaysan halka aysan ka maqnaan goob walba ee lagu shirayo ee heshiis lagu gaarayo inay ka mid ahaadaan haddana si wanaag shirkan hadda ka socdo xarunta iskugu wada yimaadeen maamul goboleedyada iyo dawladda inteeda oo idil waxa weeyaan shir aan soo dhaweynayno haddaan nahay beelaha reer Banaadir iyo odayaashooda waan soo dhaweynaynaa waana wax lagu farxo maadaama dhaba iyo wada u tahay nabad ee la sugayay intaas oo sano waana wax lagu farxaa sida aweeda waxaan baaqan u dirayaa in ay wanaagsan tahay mar walba ka dawlad ahaan ama ka maamul goboleed ahaanba in aan dadka arimahooda gaarka inaan lagu tacadinin xaqooda ay u doodaan haddii ay doonayaan qof ay dooranayaan ama qof u matalaysa booshiisanadooda ama halka ay kaga tirsan yihiin xukuumadda in oda dhaqameedyada aan lala faragashan ee dawladda ay u madax banayso in oda dhaqameed howshiisa uu wato maxaa yeelay reer walba ee maanta dawladdan ka tirsan oda dhaqameed baa ka dambeeya maadaama oda dhaqameed uu ka dambeeyo waxa wacan inay iyaga faraha ugu qaado ee ku ixtiraamto sidaas awgeeda waa arin muhiim aan baaq ahaan aan ugu jeedinayno maadaama aan nahay odayaasha iyo waxgaradka beelaha Banaadir marka hadalka inaan sii badayno ma fiicno dad fara badan horteeda way hadleen sida darteeda waxaan rajaynayaa in shirkan hadda socdo ee xukuumadda Soomaaliya ee qabatay iyo ay ka mid yihiin dhinacyada kale atraafta kale maamul goboleedyada ha u badnaadaane inuu wax qeyr qaba ka soo bixi doono waxa weeyaan insha Allah haddaan nahay beesha reer Banaadir waxa weeyaan anagana waan u soo duceynaynaa in wadankan iyo dalkan amnigiisa sidoo ahaan jiro oo ku soo noqdo ee horumarkana mar walba laga shaqeeyo